maxamed ibraahim cabdinuur iyo aadan cabdi birkaan waliba iyo kushalkoyna deegaano ku tirsan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya waliba maalmo kooban iyo ka jirana xarunta caafimaadka arlaadi isbitaalist hospital ee magaalada baydhabo lamadiiba waliba iyo ka jirana xaalada shalgadiisan oo adag oo dhinaca caafimaadka waliba la kushalhayay gacanta iyo lugta haanas oo halis caafimaad iyo ku sugnaayna aadan cabdinuur waliba uu soo maray isbitaalo kale si lugtisa landabiba balse waliba lan sheegay inii eto lugoowa taas oo si ku diidi kureeda arlaadi isbitaalist hospital oo la hagaaji eelan samay qalina sida maxamed ibraahim cabdinuur qaliinshe lanku guuleysidee bukaanadan ayaa waliba iyo kuwarbiyeena xaaladii caafimaada markii hore iyo hadda iyagoona mahadnagi maamulka si gaar ah dhaktar cabdiqaadir xaaji axmed ciro muddo oo 30 bir amal walka dheer 36 maalmood amale ya galan ka holooy ka dhuuriyay baadhookoy atan karaanto bir amale haafado ka jari ilaa inii wanay galanto meelo le ka haliya fadi ka noogi madi damba isbitaalka arlaadi yakoy alhamdulillah meelo loo gali alhamdulillah ta walbo yar ma alhamdulillah nu aroono eeda arday barwaagan hali faylahaadi ilaahay mahadle alhamdulillah galanta waliyab rafaat ya kamudidi eed xanuun badan ya kamudidi hata ilaan galantan allah ta laka daawade hata shakiyam ijan fola aan dareemi alaayti halanta madi kooyl oo galay oo suubin alhamdulillah eeda aradnilay mahanay antione alhamdulillah taktar jar elan daaw jar ya alhamdulillah ya taakidi alhamdulillah ya hatan ilaahi arday faayin kashani roona alhamdulillah ta wal boogay ma yahno roona xaalad oo anta ana ka jar isbitaalka ana ka jari dadka oo arday isbitaalka roogan oo shaqaalad eeda in soodan ami ige eedi ya in soodan alhamdulillah eeda ganta wal dhagaa minge irbada ay dareerti daawo halkaas ay dareeran waraankan un baabin adii dhawaay la hawaay illa hata hanun baabi may dhaw ma la hawaay wal alumi eed booqi bool eedan faylaha maqaashi warsadii abdulqaadir ali yaray nawal yar koroga yari insha Allah ma waa halan eed ma quran dad dhawaayo fahmile alhamdulillah eedada nasooda dadan korbooyan تعجبا له ننين ملايان يا كارجي حتى عفماتك في دي جماعة هريتي يا كوي عفماتك إذا في لي الحمد لله إلهي منك شكرا ليش تابلك إن شامي اسبتالك أرد عجيز لطم دبا يا أنت كوي حتى الحمد لله إلهي كبولسي عفماتك في لي لوت برتي أجيسي بروي الحمد لله ترتي إذا إن داويت اللوت ما عندي أنا أنت كوي جماعة أفرج ما هات يا أنت روجي الحمد لله لوت أقدر روي الحمد لله إلهي مهنا جرنا إسبتال هريه مرتي منها كل قلوب إسبتال هريتي ما يدري لطة قوينا يرى. رجدا سعيد كور مدينة. والله ورجدا قلبك خانون صناعي إذا لا أنكحناي. حتى الحمد لله لا ينكشف فيها حتى رونا الحمد لله ما حسني. dhaktar cabdiqaadir xaaji axmed ciro oo dhakhtar qaabilsan cudurrada guud iyo qaliimadii arlaadi isbitaalist hospital ee magaalada baydhabo ka howlgalawa yaa waliba soo ku warbiyay qaliimadii la ka sameeyay iyo xaaladii hadda usoona bulshada baydhabo farin caafimaad la wadaagay isbitaalka arlaadi isbitaalist hospital waa isbitaal kamid isbitaalada gaarka loo leeyahay wuxuuna daaweeyaa cudurro kala duwan qaliino sidoo kale uu sameeyaa cudurrada internal medicine-ka ugu badan qaliinadana waa qaliino guud qaliinadaas waxaa kamid dadka qabo prostate-ka heernada dadka qabo appendix-ka iyo qaliino badan oo maxay tahay burooyinka noocyadooda kala duwan ay kamid yihiin markaan usoo gudbo bukaanadan labada ah oo hadda aad wareysatay waxay Ibrahim aadan oo kale wuxuu ka yimaaday deegaanka Daynuunay
aadan markuu imaanaya lugtiisa aaday maxay tood infected u ahayd ama caabuq aad u badan ayuu qabay wuxuu noo sheegay inuu meelo kale soo marmaray meelaha qaar ay dhaheen lugtan in la gooyo ku fiicanta ama mutation lagu sameeyo annaga markii uu na soo gaarayay lugta aaday maxay tood u ahayd malax uga buuxday gangreenada ahayd sida ka muuqata sawirka oo aad arki kartid way madoobaatay far ka mid ah faraha lugta cagta qaybteeda korona sidoo kale way madoobaatay dadaal badan oo aan ku bixinay dartiis iyo waqti uu ku qaatay isbitaalka iyo sokor uu qabay oo aan dejinay sokorta marka hore isku muusan ogeyn way u qarsaneed marka isbitaalka la keenay ayaan ogaanay inuu yahay bukaan diabetic ah haddii aad boog leedahay oo sokor aad qabtid ma ahan macnaheeda boogtaas inay isla markii ay xubintaas kaa goynayso ma ahan waxaa jira nidaam iyo dadaal loogu talagalay oo maxay tood isbitaalka uu u diyaariyay dadka diabetiga gaar ahaan insha Allah taala dadka sokorta qaba waxaan leenahay kusoo dhawaada Arlada Speciality Hospital waxaan idin haynaa nidaam fiican oo sokortana lagu xakameyn karo haddii boog aad leedahay ama nabar uu ka soo baxayna nabarkaas lagu daaweyn karo inta aysan dhicin in maxay tood fara laga gooyo lagu dhihin ama luga laga gooyna lagu dhihin sidoo kale bukaanka labaad oo magaciisa la yiraahdo Maxamed asagana wuxuu naga soo gaaray meel baadiye ah oo tuulo ah magaceeda hadda aan xasuusanin markii la keenay sidaas oo kale asagana gacantiisa aad u bararneed ilaa iyo inta laga gaaray xusulka ayaa aad u bararneed wuxuu ahaa bukaan gacanta ee malax ka buuxdo aad u dhiban xanuun haayo ii sheegay inuusan 5 habeen oo markaas maalinta la keenay isbitaalka ka horeysay inuusan wax hurdo ah helin alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan u sameynay bus evacuation ama malaxda ku jirtay gacanta ayaan ka qalnay alxamdulillah rabbil caalamiin gacantiisa farahan way dhaqaaqayaan way shaqeynayaan gacantiisana waxaan rajeynaynaa maalmo kadib inuu isbitaalka ka bixi doono oo gacantiisa ku shaqeysan doono haddii Ilaahay yiraahdo sidoo kale asagana wuxuu ahaa diabetic ahaa way u qarsanay sidoo kale dadkan dad baadiyo ku noolay waaye dad magaalada ku noolay ma ahan isku meesan ogeyn alxamdulillah rabbil caalamiin asagana maanta gacantiisa gacan uu rajo badan ka leeyahay oo u soo noqotay waayaan dhihi karaa sida runtii ah markii la keenay gacantaas waa laga sabarsanaa waxayna ahayd ilaa xusulka caabuq aad u fara badan malaxa ka buuxday haddana maanta maasha Allah xaaladiisa aad u fiican tahay sidoo kale maxay tood bukaankaas asagana dadaal badan aan u sameynay dadaalkii waa Ilaahay uu nagu guulay alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan u rajeynayaa inuu caafimaad doono insha Allah taala